qoraasiyaasi booba yuusuf ducaale ayaa waxa uu si qoto dheer uga warramayaa taariikhduu lahaa allah u naxariiste marxuum axmed yaasiin xaaji axmed gabay xaddi oo maanta asqaran loogu sameeyey magaalada hargeysa. axmed yaasiin xaaji axmed gabay xaddi wuxuu ka mid yahay odayaashii magaaladan hargeysa iyo somalilandba foolaadka u ahaa. waxaan bartay anigu intii dalka lagu soo noqday maqal maahe arag iyo sheeko wadaag iyo wada socod. intii dalka lagu soo noqday intii ka horeysay waan maqli jiray laba duruufood iyo laba waaye oo kala gedsanayaan ku kala nooleyn. aniguna intii 81kii aanay asanan bilaabmin xamar ayaan ku noolaa, isaguna hargeysu ku noolaa. marka intan dambe ee dib u xoreynta ka dambeysay ayaan axmed yaasiin aad u sii bartay. axmed yaasiin waxaan aad ugu sii bartoo kale waxaanu saaxiibo noqonay colaad cabdilaahi yaasiin oo adeer u yahay iyo xildhibaan xaashi xuseen caabi oo aan isaguna ka fogeyn. axmed yaasiin wuxuu ahaa raggii xansaska iyo xaabada u soo guray majaalkan caafimaadka ee somaliland waayihii lagu jiray gumaysigii ingiriiska, isagoo ka shaqayn jiray magaalada ceerigaabo oo diresar ahaa. baryaha diresaradu may ahayn kalkaaliyayaashan maanta oo kale, laakiin tii darajooyin bay lahaayeen sida xadhiglayaasha militariga ama bilayska ama xadhiglayaasha bayloodada dayuuradaha wada ee garabka ku xidha xadhigga iyo 2 iyo 3. axmed yaasiin magaalada ceerigaabo ayuu ka shaqayn jiray dhowr iyo 40kii kontonaadkii. markii dambe hargeysa ayuu soo wareegay. hawshii dirasarnimada ayuu in badan ku jiray. markii dambena farmasi ayuu furtay, farmasiyadii ugu horeeyay oo waxaan filayo xilliyada in la oran jiray drug store oo aanu magacan farmasiyiguba jirin. asaasayaashii la midka ahaa ee budiga u ahaa waxaa ka mid ahaa axmed xasan ibraahim iyo maxamed good. axmed yaasiin intii gobonnimada somaliland ay dib ula soo noqotay door fiican oo lama ilaawaana oo hormuudnimo ah ayuu ka ciyaaray ololayaashii isdaba joog ee dalkani soo maray ee dib u heshiisiin lahaa, ee nabadeyn lahaa, ee hubdhigis lahaa, ee dib u dhis lahaa, ee geedi socodka dimuqraadiyadeed lahaa. axmed yaasiin taariikhdii loo imayso in badanna wuu ku jiri doonaa xusuusta iyo xiska dadka jamhuuriyadda somaliland. naxariistii jannaal ha siiyo innagana dhammaanteen, gaar ahaan qoyskiisii somaliland oo dhan, gaar ahaan magaaladan hargeysa. cabdirashiid cali bare, Saab TV, Hargeysa.